Asalaamu calaykum asxaabteena qaaliga ah. Waa walaalkiin Xuseen. Haddii aad nagu cusub tahay, soo dhawaaw. Haddaad hore noola joogtana, like saar, walaalahaada kalena la sii wadaag. Mahadsanid. Waxaan ku guda jirnay garaamarkii koowaad ama dalbilkiisigii koowaad ee luqadda Turkiga ahna kii noogu horreeyay ee aan ka akhrisanaynay buugga koowaad ee Everyone-ka. Marka intaanan u gelin garaamarka, maadaama uu yahay kii noogu horreeyay, bal wax yar aan ka taabanno shaqalada Turkiga saameynta ay ku leeyihiin naxwaha ama garaamarka. Alifbeetada Turkiga waxay ka kooban tahay 29 xaraf. Markii yaryaraan loo qoray waxaa loo yaqaanaa küçük harfler. Markii waaweyn loo qorayna waxaa loo yaqaanaa büyük harfler. Marka waan horaan u soo aragnay alifbeetada Turkiga waxaa loo qaybiyaa ikiye adler, laba ayaa loo qaybiyaa baa la yiri. Koo waa silsili harfler oo shaqal ah 8 xabba. Magac kale leeyihiin waxaa loo yaqaanaa unlu harfler. Shibanayaasha waxaa la yiri waxaa loo yaqaanaa silsili harfler waana 21 xabbo. Waxaa kaloo magac kale leeyihiin waa unsus harfler. Shibanayaal marka unsus iyo silsili waa isku mid, unlu iyo silsilina waa isku mid. Marka intaan muhiimadeenu maahan silsili harfler ayaa shaqalka ayaa la yiri 8 xabbo ayuu ka kooban yahay. Meeshaan ay xarabnaa shaqalka inaan wax yar faahfaahino. Meesha muhiimadeena waa shaqalka. Intaana shaqalku ugu qaybsamaana kala qaybin, waxaa muhiim ah inaan wax yar ka taabano shaqalku sida uu shaqeeyo. Horta waxaad ogaataa luqadda Turkiga ereygu hadduu yahay erey sax ah oo luqadda Turkiga oo luqadda ay Turkigu ay leeyihiin, laba shaqal kuma kulmaan. Sida hadda kan oo kale saacad, labadan ayaa hadda la socota. Luqadda Turkiga hadduu asal yahay ereygu uusan luqado kale uga imaanin, laba shaqal isma raacdo. Waxaan kale ogaan doonaa markaan anagu aan dhisayno grammar, markaan dhisayno dhici doonto in laba shaqal inaan kulmino oo laba shaqal ma kulmi kartid. Sida ajligeed marka waxaa qasab ah inaan ogaano inaan laba shaqal aan kulmi karin. Hadda misalan tusaale ahaan markaan dhisayno laba shaqal oo kale, hadda baba oo kale waa aabe. Markaan rabna aabihiis, aabaheed markaan dhahno ama aabihiis waa isku mid. Gabar iyo wiil markii aad sheegayso aabihiis ama aabaheed aad dhehayso isku sharciga qaataan. Marka xarafkaas uuda ayaa sharciga in lagu daro. Marka saan inaad samaysaa waa qalad. Sharciga laba faawal marka sharci samaynta laba faawal saan uma kulmi karno. Marka si aan u ilaalino waxaa isticmaalaynaa s ayaa la isticmaalaa. Marka hadda waxa way baabazi, labada shaqal waa la kala ilaalinayaa. Marka erey sax oo luqadda Turkiga oo leh laba shaqal oo isku xigta ma jiro markii laga reebo ereyada luqadaha kale ugu yimid. Marka anagu aan samayn doono ama aad samayn doonto adigu aad samaynaysidna ma kulmi kartid, laba shaqal ma kulmi kartid. Marka waxaa la isticmaalaa inta badan waxaa la isticmaalaa xarafka s iyo sidoo kale xarafka ya iyo sidoo kale xarafka n. Saddexdaas xaraf ayaa la isticmaalaa. Saddexdaas xaraf waxaa loo isticmaalaa inta badan markii sharciyada la dhisayo shaqalada luqadda Turkiga in lagu kala ilaaliyo. Marka saddexdaas shibane ayaa lagu kala ilaaliyaa luqadda Turkiga. Marka aan ka socono marka intaas waa in ogaato waa muhiim. Laba shaqal oo Turkiga ma kulmaan, lamana kulmi karo. Xarfaha ama shaqalada luqadda Turkiga waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. Labada qaybood waxaa la kala yiraahdaa kalin iyo ince. Kalin waxaa ku jira a, u, o, u. Waxaan loo yaqaanaa xarfaha ama shaqalada culus loo yaqaanaa. Qaybta labaad waxaa ku jira ince. Waxaan loo yaqaanaa e, i, u. Shaqalada fudud. Marka kuwaan 8 xabbo waaye, 4 iyo 4 ay u kala baxayaan. Waxaad ogaataa siday u qaybsan yihiin ay ugu qaybsan yihiin luqadda Turkiga. Xarfahan ee shaqaladan in kalin ah erey ay soo galaan soo geli maayaan, ince soo ma galaan. Shaqaladan inceena meel ay soo galaan soo ma galayaan, kalin soo ma galayaan. Marka sidaa hadda ay u kala duwan yihiin ay mar waliba u kala duwan yihiin. Oo ereyashan kalinta afartan meel xarf ay soo galaan, erey ay soo galaan ama ficil ay soo galaano afartan kale injeeda ka soo geli maayaan. Marka sidaas kala qaybsan markii laga reebo erey yar ama ficil yar, kuwaas oo insha Allah hal cashir ka diyaari doono oo ayaguna aad u fudud. Marka waxaad ogaataa 8 isma galaan baadidooda. Kalin si gaar ah u shaqeysaa, ereyaal gaar ah galaan, ficil gaar ah galaan. Markii grammar lagu dhisayo ama naxwo lagu dhisayna waxaa qasab u ah haddii afartan mid ka mid ku jiro waxaad ku dhisi doontaa afartan shaqalka mid ka mid ah ku dhisi doontaa. Haddii afartan mid ka mid ereyga ku jirana afartan mid ka mid ah ayaa ku dhisi doontaa. Marka afartan isma galaan, afartan kore oo kalinta ah
iyo afartan hoose injeeda ah midba midka kale shaqo kuma lahan. marka waxa weeye kalin ereyga ay galaan injee soo geli maayaan, injee ereyga ku jiraana kalin soo geli maayaan. marka waxa weeye baadidu isma gasho markii laga reebo ereyo yar. waxaan arki doonaa ereyo yar oo kalin iyo injee ay ku kulansan yihiin hal erey oo ka wada dhexeeyaan oo labadoodu soo wada galaan. marka laakiin inta badan ereyaashaasna waa arki doonaa ay si kusoo galeen ama sharciga ay isu yimaadeen. marka waxaas waa ka sheekaya hal mar cashir ka diyaari doonaa. marka waxaad ogaataa inaysan isu imaan sidii laba group hadda u yihiin ayay mar walba laba group u ahaan doonaan. marka kalintan ku hormaraynaa. kalinta waxaa la yidhi ereyaashan kalin ayay ku qaas yihiin. hadda okul waa iskuul, waxaa ku jira laba shaqal, labada shaqalna waa kalin. okumaag waa 3 shaqal ayaa ku jirta waa aqrin, 3da shaqalna waa kalin. daaha waa weli, 2 shaqal ayaa ku jirta labaduna waa kalin. odaa waa qol, 2 shaqal ayaa ku jirta waa kalin. sauuq waa qabow, 2 shaqal ayaa ku jirta waana kalin. olmaag waa noqosho, 2 shaqal ayaa ku jirta waa kalin. sunuf waa 2 shaqal ayaa ku jirta waa kalin. waxaa ogaataa marka sida kuwan hadda kalinka ay ugu yihiin kalin ay ugu yihiin shaqalo gaargaar ugu yihiin ayaa injeeduna ereyo kale ama ficilo kale ay qaas ugu yihiin. marka ayagu isuma yimaadaan. sharci marka la dhisa hadda ereyaasha marka sharcigooda aan dhisi doono insha Allah hal erey shaqal oo injee ah sooma geli kartid. waa ka soconayna. marka kalinta waxaa la yidhi marka meesha ugu muhiimsan sharciga kalin markay shaqay doonto insha Allah waxaan ogaa doonaa kalin waxaa la yidhi markay sharci grammarka turkiga ku shaqay doonaan kalin waxaa ogaataa xarafka a ayaa mar wuxuu wada mateli doonaa dhammaantood afartan. waxaa lagu dhihi doonaa afartan mid ka mid meesho galo waxaa sii kartaa kalin ayaa sii kartaa. hadda tusaale ahaan okul waa iskuul, waxaa lagu dhihi doonaa afartan mid ka mid hadduu soo galo a si lagu dhihi doonaa. misla hadda okul soo maaha waxaan siinaynaa a. hadda okula waxaa waaye to school waa marka iskuulka aan socda markaa dhaysa okula gediiro shaqalkan aada isticmaali doontaa marka maxaa yeelay u iyo o ku jira labadu waa kalin. sharciga ugu badan marka wuxuu noqon doonaa labadan group loo qaybiyaa. laba group ayaa loo kala qaybiyaa. groupka koobaad waxaa ku jira a iyo u, groupka labaad waxaa ku jira o iyo u. waxaa muhiim marka meesha inaan ogaano labadan group markay noqdaan inaad waxaa muhiim inaad fahamto a iyo u haddii groupka isla soo galaan waxaa shaqay doona u ayaa shaqay doonta. maxaan ku iri haddii groupka isla galaan ayaa shaqay doona u ayaa shaqay doona. o iyo u haddii groupka isla soo galaan ayaa shaqay doona u ayaa shaqay doona. waa intaas muhiimadeedu. maxaan ku iri a iyo u haddii groupka isla soo galaan u ayaa shaqay doonta, marnaba a ma shaqay doonto. o iyo u haddii groupka isla soo galaan ayaa shaqay doona u ayaa shaqay doonta. a iyo u haddii groupka isla soo galaan ayaa shaqaynaya u. o iyo u haddii groupka isla soo galaan ayaa shaqaynaya u ayaa shaqaynaysa. haye group 1 waxaa loo yaqaanaa dus ayaa magaciisa la yiraahdaa. dus macnaheedu waxa weeye xarfaha fidsan. xarfaha markii lagu dhawaaqay ay fidsan yihiin waaye. xarafka koobaad ee a waxaa loo yaqaanaa ingiriis waa xaraf ballaaran. markii lagu dhawaaqa waxaa loogu dhawaaqaa a. afkaaga wuxuu sameynayaa kala oo kala qaadmiyaa a ayaad leedahay. xarafka labaad ee u-na waxaa loo yaqaanaa daar ciriiri. daar iyo ingiriis iska soo horjeedaa. marka waxaa leedahay u ayaad leedahay. groupka labaad waxaa loo yaqaanaa yufarlag ayaa la yiraahdaa xarfaha goobaysan. xarfaha goobaysan. xarafka koobaad ee o waxaa loo yaqaanaa geniis. geniis waa xaraf markii lagu dhawaaqo ballaaran yahay afka gooban oo sameynaya. bal ku dhawaaqna soo dhawaaqa oo adi afkaada bal marka oo dhehe fiireyso oo uu kala qaadmaya laakiin furyaad maxay sameynayaan gooba ayay sameynayaan. xarafka labaad waxaa loo yaqaanaa daar. daar waa ciriirisan yahay. xaraf marka ku dhawaaqo uu ciriiri yahay waaye waa u marka dhahdid afkaadu wuu isku soo dhawaana laakiin qaybaha hore bulshada waxay sameynayaan qayb yaro gooba. muhiimadeena marka kuwan dhawaqa ma ahan hadaartu waa ku akhri kartaa ku celi kartaa fahmi kartaa laakiin muhiimadeena waxa weeye labadan group inaan fahmno. groupka koobaad waxaa la yiraahdaa a iyo u ayaa ku jira. groupka labaad o iyo u. marka waxaad ogaataa mar walba haddii lagu yiraahdo a iyo u haddaad meel ku aragto xitaa qof aan af Soomaali ku sharaxin haddaad aragto waa muhiim inaad ogaato xarafka u bisa shaqeynaya. maxaan ku iri a iyo u haddii laba group hal group lagaaga dhigo la yiraahdo a iyo u midkiis haddii lagu yiraahdo waa inaad soo qaadataa xarafka u. o iyo u haddii midkiis lagu yiraahdana waa inaad ogaataa xarafka u waa inaad ogaataa ilaa laga shaqeynaya. marka o marnaba shaqo ma gasho. a ana markay group hal ku jirto u ayadu markay hal group isla yihiin ma shaqeyso. marka meeshan waxaan ka fahmaynaa a iyo u inuu u kaliya noo shaqey doonto sharciga o iyo una in u kaliya noo shaqey doonto. insha Allah cashirkeena waxaan ku faahfaahin doonaa injeeda ka bacdina waxaan sameyn doonaa lahaansheena. dhammaantiin waa inii mahadceliyaa waa mahadsantihiin. raalli ka noqda haddii waqti aan gelin shay aad baa idin salaamayaa. soo dhawaada mar kale.